Corcoran oo kusoo barbaaray gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka wuxuu ku noolaa halkaasi sanadihii 1940 iyo 1950 wuxuuna ka baxay dugsi sare wuxuuna ka soo qalin jabiyay jaamacad. Wuxuu sanadii 1960 noqday macallin muddo 17 sano ah ayuuna ku howlanaa shaqadaasi. Haatan wuxuu sharaxayaa waxyaabihii u qarsoonaa muddada intaa leeg uu macallinka ahaa. Markii aan caruurta ahaa waxay waalidkayga ii sheegeen inaan guusha gaaray 6 sano ugu horeysay. Waxaan rumaysnaa waxay waalidkay ii sheegeen. Markii aan yaraa waxaan doonayay inaan wax barto si qaar ka mid ah walaalahayga. Markii aan ku biiray iskuulka gaar ahaan fasalka labaad waxaa la iga rabay inaan wax qoro waxna barto, mana garanaynin sida wax loo aqriyo. John Corcoran wuxuu sheegay inuu xusuusto mararka qaar inuu Ilaahay bari jiray si uu wax u aqriyo. Mararka qaar waxaan isku dayay jiray inaan qaato buug si aan u aqriyo, balse wuxuu igu noqday sida wax mucjiso ah aan fahmi waayay. Markii aan gaaray fasalka 5aad waxaan nacay fasalka, isla markaasna waxaan doorbiday inaan qaado talaabooyin aan ku badbaadayo. Markii aan gaaray fasalka 7aad waxaan inta badan maalintii la igu arki jiray xafiiska maamulaha iskuulka. Waxaan noqday qof iska nacas ah oo dagaal badan. Ugu dambeyntiina waxaa la iga eriyay iskuulka, balse waxaan ahaa qof niyadiisu ay ahayd inuu guul gaaro. Waxaan sidoo kale doonayay inaan noqdo arday wanaagsan. Arrintaasi iima suuragelin inay ii hirgasho. Markii aan gaaray fasalka 8aad waxaan garwaaqsaday inaan dib u dhacay, balse waxaan go'aansaday talaabooyin aan ku badbaadi karo. Waxaan doonayay inaan noqdo orodyahan. Waxaan lahaa xirfadda orodka iyo xisaabta. Waxaan la ordi jiray caruurta wax ka dhigata college-ka. Waxaan saaxiibo la ahaa dad badan oo ay ka mid yihiin gabdhaha iskuulka. Waxaa la ii sameyn jiray casharada layliga ah. Xilligaasi waan qori karay magacayga. Waxaa sidoo kale jiray xarfo aan soo xasuusan jiray balse ma qori karin. Marka waxaan dhiganayay dugsiga sare qofna weligay uma sheegin in aan waxba qori karin. Markaan imtixaanka galayo waxaan ka qishi jiray ardayda kale ama waxaan ku wareejin jiray warqadda qof kale si uu iiga shaqeeyo, balse waxay sheekadu isbedeshay markii aan deeq waxbarasho ka helay college-ka lagu barto xirfadda orodka. Waxaana isweydiiyey sida aan ugu gudbi karo college anigoo ay dhibaatadan i haysata. Mid ka mid ah barayaasha college-ka ayaa maalin wuxuuna soo hordhigay imtixaan. Waxaana fadhiyay meel u dhow daaqadda fasalka. Waxaa gadaal iga jiray arday, mana garanaynin waxa ku qoran warqadda. Waxaan doorbiday inaan qisho. Waxaan warqaddii ku wareejiyay arday gadaal fadhiyay. Wuxuu ahaa arday maskax leh, dhammaanuu iga soo jawaabay su'aalihii. Xilli aan haystay warqad kale oo aan iska dhigayay inaan wax qorayo. Waxaan ku rajo weynaa inaan ku baaso imtixaanka si aan ugu gudbo kulliyadda. Waxaa sidoo kale jiray imtixaan kale oo aan ka fikirsanaa qaabka aan ugu baasi doono. Xilli habeen ah waxaan aaday xafiiska professorka college-ka. Waxaan furay daaqadda aniga oo wata mindi sida qof tuug ah. Xilligaasi ma ahayn oo kaliya arday qish raadinaya, balse waxaan ahaa qof dambiile ah. Waxaan muddo 2 iyo 3 cisho ah ku raad joogay inaan helo warqadaha imtixaanka. Xilli aroor ah aniga iyo saaxiibaday waxaan galnay xafiiska, balse nasiib daro imtixaanka waxaa lagu xiray armaajo ku jirtay xafiiska. Waxaan qaadnay armaajadii lagu xiray warqadaha imtixaanka. Waxaana u yeeray nin farsameeya qufulka. Wuxuu noo furay armaajadii. Waxaan kala soo baxnay ilaa iyo 40 warqadood, halkaasi oo nuqul ka mid ah warqadda ku wareejinay arday ku sugnayd goobta la seexdo ee college-ka, kuwaasi oo ka bixiyay jawaabo sax ah. Dib ayaan u celinay armaajadii abbaara 5tii subaxnimo. Waxaana dib ugu laabtay gurigaygii aniga oo leh waxaan guul ka gaarnay hadafkii noo suurageli waayay. Waxaan dareemay farxad anigoo isleh waxaad tahay qof fariid ah. Waa arrin qarsoodi ii ahayd oo aan ilaalin jiray. Macallimiinteyda iyo waalidkayga waxay ii sheegi jireen in dadka ka soo qalin jabiya college-ka ee haysta shahaadooyinka ay ku helaan shaqo wanaagsan. Marka wuxuu hadafkaygu ahaa inaan helo warqadahaasi wax kastoo aan sameeyaba. Marka waxaan ka qalin jabiyay college-ka. Xilligaasi waxaa halkaasi ka jiray gabaabsi dhanka macallimiinta ah. Waxaan helay shaqadaasi. Waxaan u muuqday in xirfadda macallimada lagu dhuuman karo, mana jirto cid uga shakin karta macallin inuusan waxba qori karin. Waxaan ardayda barayay waxyaabo kala duwan. Waxaan ahaa macallin diiradda saara dhanka tartamada orodka iyo cilmiga bulshada. Waxaan kombiyuutarka ku daabici jiray xarfaha, balse ma garanaynin waxa aan qorayo. Weligay sabuurad waxba kuma qorin. Marka aan fasalka ku jiro waxaan daawan jiray filimo iyo doodo. Waxaan xusuustaa si aan u cabsan jiray. Waxaan ardayda ka codsan jiray inay ku dhawaaqaan magacyadooda si ay u maqlo magacyadooda. Waxaa jiray 2 ama 3 arday oo wax aqrin karay oo iga caawin jiray fasalka. Igama aysan shakin weligay, sababtoo ah ma ka shakin kartid macallinka. Caqabadaha ugu weyn ee haystay waxay ahayd shirarka ay yeelanayaan macallimiinta. Toddobaadkiiba waxaan lahayn hal shir oo loogu hadlo xaaladda waxbarasho. Maamulaha college-ka wuxuu soo wici jiray
tegay mid ka mid ah macallimiinta si uu u soo bandhigo fikradaha, balse waxaan ka cabsan jiray in aniga la ii soo waco, balse waxaan haystay tallaabo kale oo arrintaasi u gaashaaman karo. Waxay tallaabadaasi ahayd inaan iska dhigi lahaa qof sare jooga ka dhacay marka la igu yiraahdo hogaami shirkaasi, kadibna sidaasi laigu qaado isbitaal. Mararka qaarkood waxaan dareemi jiray in aan ahay macallin wanaagsan, mararka qaarkoodna xanuun ayaan dareemi jiray, laakiin qofna lama wadaagi jirin arrintan. Waxaan guursaday aniga oo macallin ah. Sanado kadib waxaan noo dhalatay gabar. Gabadhayda markii ay jirtay 3 sano waxaan bari jiray wax akhriska, balse aniga ma garanaynin sida wax loo akhriyo. Waxaan ugu sheekayn jiray sheekooyin dhowr ah. Xaaskeyga waxay garoosatay dhibaatada aan kala kulmo wax akhrinta, balse waxay iga caawin jirtay casharada aan iskuulka ka dhigo. Mana jirin wax isku dhac ah oo na dhex maray, markasta way caawin jirtay. Waxaan macallin ka ahaa dugsiga sare laga bilaabo sanadkii 1961 ilaa 1978. 8 bilood kadib markii aan shaqada macallinimada joojiyay, wax weyn ayaa isbedelay. Waxaan telefishinka ka arkay xaaska madaxweynihii hore ee Mareykanka Barbara Bush xilli ay ka hadlaysay waxbarashada dadka waaweyn. Horey uma arag qof ka hadlaya waxbarashada dadka waaweyn. Waxaan u maleeyay in aniga oo kaliya aan ahay qofka ay dhibaatada haysato. Waxaan noqday sida qof rajo beelay, balse waxaan doonayay in dadku ay iga caawiyaan dhibaatada akhris la'aanta. Maalin waxaan tagay mid ka mid ah goobaha lagu iibiyo qudaarta. Waxaan maqlay 2 haween oo ka sheekaysanaya qof qoyskooda ah isagoo da'weyn wax barta. Arrintaasi ma aanan rumaysan. Maalin Jimcaha waxaan aaday maktabadda oo ah goobta dadka waaweyn wax lagu baro. Waxaana la kulmay agaasimaha barnaamijka waxbarashada dadka waaweyn. Waxaana u sheegay in aan waxba qori karin. Waa qofkii labaad oo aan la wadaagay xogtayda. Waxaan la kulmay macallin isa soo xilqaantay oo 65 jir ah. Ma ahayn macallin, balse waxay ahayd qof jecel wax akhrinta. Iyadoo may filaynin in nolosha qof joogi karo isaga oo aan waxba akhrinin. Waxyaabihii ugu horeeyay igula taliso waxaa ka mid ahaa in aan badiyo wax qoridda. Waxaan ka mid ahaa waxyaabihii aan qoray maanso ka hadlaysa dareenkayga. Waxay ila gaartay ilaa iyo heer 6 ee wax akhrinta xarunta, balse muddo 7 sano ah ayay igu qaadatay inaan noqdo qof wax bartay. Waan ooyay, aad ayaan u ooyay kadib markii aan bartay sida wax loo akhriyo. Xanuun iyo walwal ayaa ila soo darsay. Waxay ahayd sir fadeexo ah. Waan go'aan weyn oon fududayn in aan soo bandhigo sheekadan gaartay guud ahaan Mareykanka. Muddo 10 sano ah ayaan ilaalinayay sirtan oo aan la wadaagay dunida. Waxaan ka soo muuqday barnaamij ka baxay ABC News Magazine. Ma ahayn wax wanaagsan in dadku ay maqlaan sheekadan macallin aan waxba qori karin. Dadku waxay oranayaan arrintaasi ma dhici karto, balse waxaan doonayaa in ay dadku ogaadaan inay jiraan xal iyo rajo, waana baran karnaa sida wax loo akhriyo. Sheekadan waxaa qortay Sarah McDormand.